waxyaabaha la doonayo in aan ku dadaalno bishan waxa kamida cafinta kamida intaan Ramadaan la gaarin yaa waxa la rabaa inaad ku dadaashaan cafinta inaad ku dadaashaan oo cafinta meel kasta waa lagu amaanay bini aadamkana waa amaana ilaahay agtiisana way ka amaananta shariicadu agteedana waa ka amaananta inna allaha ta'ala afuun yuhibbul afwa ilaahay waa cafin badan kan wax cafiyana waa jecel yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala marka adiga qofka dhibaatada idin kala dhaxayso iska cafi waxay ogow ramadaanka de amaasha waa la saraqaadaya shacbaan la saraqaadaaba 15 shacbaan waa la saraqaadaa amaasha illa laba ruux mooyee illa rajulani كانت بينهما شحناء وكما قال صلوات ربي السلام عليه لبر روح لو ما دافو او اي كدخيسو wax la yiraahdo shaxnaa shaxnuhu waxa weeye colaad baa ka dhaxaysa labada ruux amalkooda lama saraqaada buu yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam meesha waxa ka fahmayna marka hadda caawadan la taagan yahay haddaad qof col aad tihiin iska cafi waa cafi kulli ma taas laga boodo iska cafi telefoonka ka wac message u qor haduu ka qaban waayo xataa message u qor laba jeer ku celi saddex jeer ku celi telefoonka haduu ka qaban waayo waxa tiraahdaa kulli waa ogahay inaad iga qabanaynin ani kulli waa ku cafiyay adiga inaad cafin doontaa rajeynaya saas khalaas marka labada qofood qofka salaanta ku hormara khayr badan buu nabi sallallahu alayhi wasallam marka adiga midka khayr ka badan noqo oo caawad qofkii wacayba oo icafi dahay sababtoo ah ramadaan oon amalkaaga ilaahay loo geeynin waa khasaaro ramadaan oon laga aqbalin waa khasaaro ilaa hadii qof il colaad idin ka dhaxayso ramadaan la aqbali maayo hasdaalin marka saadarteed colaada soo afjar marka adiga soo afjar adoo u taxadaray cibaadadaada adoo u taxadaray ilaa waa laga wareysanaya maalinta qiyaamaha lagu weydiinaya waxa laba qiraa'atul quraanka akhrintiis in lagu dadaalo aayaadkii lagu furfurtay muhaadarada maxaa kamid ah shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran ramadaanku waa bishii quraanka la soo dajiyay waa bishii quraanka marka saadarteed maadaama bishii quraanka uu ay tahay in quraanka aad akhriso waa muhiim marka oo laba jibaarto laba juz saddex juz intaad akhrin karto ku dadaasho saasa la doonay waxa kamid ah waxyaabaha looga faa'iideysto tasbiixda in ilaahay afkaaga uusan ilaahay ka bixin oo mar walba ilaahay xusto subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mar walba ku soo celiso istighfaarta in ilaahay subhanahu wa ta'ala adambi dhaaf weydiisato bisha ramadaan waa jaanis waa bisha ilaahay ducooyinka aqbalo waay marka ilaahay istighfar iyo dambi dhaaf hadaa weydiisato waa ka aqbalaya say u badan tahay waa ka aqbalaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waa bil ducooyinka la aqbalo ka faa'iideysa marka dunuub far badan baa ku qarsoon ama dunuub far badan baad og tahay oo gashay ilaahay kaga toobadkeen maalinta bishaas kaga faa'iideyso bisha waa jaanis walaalayaal waxa kamid waxyaabaha aan xataa isdul taagayno sadaqada kamid waxyaabaha bisha ramadaan looga faa'iideysto sadaqada kamid marka lagu leeyahay nabi maxamed kaana ajwad an-nas dadka midka ugu wuxuu ahaa degdega bada xagga khayrka yaani sadaqadu bixin jiray nabi sallallahu alayhi wasallam in ka badan intuu bixiyo bilaha kale marka sadaqada inaad ku dadaashaan xoolahaaga oo xaqi lagu lahaa aad ka bixinayso inna fil mali la haqqan siwa zakat buu dhihi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam war xoolahan xaq baa lagu leeyahay oo zakat ahayn xaqa lagu leeyahayna waa xaqa masaakiintu ay ku leeyihiin xaqa ay agoonta ku leeyihiin xaqa ay musaafiriinta ku leeyihiin xaqa ay yaani wax weeyaan diinta ay ku leedahay marka saadarteed xoolahaaga inta xaq lagu leeyahay ka bix lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun marka birri iyo wanaag ayaad rabtaa ramadaanka inaad hesho wanaag iyo birri saad ku gaaraysaa hadaadan bixin waxaad jecesho illa aad bixisaan waxaad jeceshihiin wanaag gaari meysaan buu ilaahay subhanahu jalla wa ala sidoo kale walaalayaal sadaqadu fadligeeda horta lama soo koobi karo
maalinta qiyaamana hoos bay ku tahay warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclamu shimaaluhu maa sanacad yamiinuhu midigtaada waxay fashay bidixdaadu ma ogaan doonto maalinta qiyaamaha qofkaa wey qofka sadaqadu maalinta qiyaamaha intifaacsan doono ay anfici doonto qofka asagaa wey walaalayaal sadaqada ilaahay subxaanahu watacaala baa kaa guddoomaya cibaadaadka kale waxaa laga yaabaa inuusan ilaahay kaa guddoomin sooma waa laga aqbalay ajar baad ku heshay laakiin sadaqada waxay kaga duwan tahay waxaas ilaahay baaba guddoomayaba gacantiisuu ku guddoomaya man tasaddaqa bicadli tamra min kasbin tayib timir wax la eg xoolo xalaalna aad ka bixisay haddaad bixiso fa ina allaha yataqabbaluhaa biyamiinihi buu nabi sal ly slam ilaahay gacantiisuu ku guddoomaa uma yurabbiiha lisaaxibiha kamaa yurabbi axadukum faluwa kadib addoonkii wax bixiyey baa loo barakaynayaa waa loo korinayaa waa halkii xabo oo timirta ahaa ilaa ay jabal la ekaato buur ilaa ay la ekaato yaa ilaahay subxaana watacaala korinaya halkii xabo timirta ahaa marka adigu dee dadka sooman xataa afuri anfurinta iftaaru saa'im kan sooman inaad anfuriso laba ajar baad helaysaa ajarkii sadaqada iyo ajarkii anfurinta soon laba soon baad helaysaa dadka kale hal soon bay sooman yihiin laakiin adiga laba soon baad helaysaa marka walaalayaal sadaqadu qadarkeedu wax la soo koobi kara ma aha walaalayaal marka waxaa la rabaa in la dadaalo oo aad loo dadaalo bishaan ayaa la doonaya waxyaabaha la doonaya in lagu dadaalo waxaa ka mid ah in yacni waxa weeyaan dacwada iyo khayrka laga qayb qaato oo laga faa'iidaysto oo dacwada la faafiyo bishaan ramadaan khayrka la faafiyo ayaa la doonaya khayrka haddaadan adigu faafin karin xataa midka faafinaya khayrkaas gacan ku sii laftirkeeda waxay ka mid tahay min asadaqa sadaqaadkay ka mid tahay nabiga ilaahi subxana wa tacala wuxuu leey waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كهذا الصوبن وكهذا الونكسن روح إلهي ترتز دتك أقباقي إلهي حقي سو دتك أقباقي وركاس يا كهذا الونكسن بقول الله سبحانه وتعالى مرك هذا اسكت ضيق كرت وأي صورة قل قوطة إن الدعوة فافيس أو خير كشكت أو قرآن كدتك برتو أو وناك دتك وشكت وبرتو isku day bishaas laba jibaar waliba laba jibaar samee dadaalkaaga hor u sii qaad nabiga ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul hadhihi sabili nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam waxaad ku tiraahdaa baa liiri hadhihi sabili ad'u ila allah wadadayda waatan wadadayda san dadku ugu baaqayaa wadadiis waatee wadadiisa waa in khayrka la sheego waa in wanaaga la sheego وإن دعوة دين تلفافياه ضدك لبراوه أما لبرتاوه واسكمت إن أدبرت لفتر كذا وحي كمت هاي فافين الدعوة ذي كمت دعوة فافيسا هي دعوة فافينيسا اسكميش اللي تمانيسا مركز هذا رد هذا إن أدبرته اسكو ضي لفتر كذا ودينتي علومتي شريعة أدبرته مركولا ليال بشهر رمضان مركا وبالخيرات كاس له وناقاسنا للدونيو إن هاد uga qayb qaadataan ya caawa idinka muxaadarada ka soo dahay laakiin waxyaabo badan baa ii diyaarsanaa waxaan soo xasuustay